abka California wuxuu sameynayaa kiimikooyin cusub. Ab Amanita phalloides waa fangaska ugu halista badan dunida. Hal mid oo keliya ayaa dili kara qof weyn. Inkasta oo uu asal ahaan ka yimid Yurub, maanta wuxuu ku faafay Ameerika, Afrika iyo Australia. Cilmi baaris cusub oo ka timid jaamacadda Wisconsin, Madison ayaa muujisay in abyada ku faafay California ay hadda soo saarayaan kiimikooyin cusub oo aan laga helin fangaska ku nool Yurub. Fangasku si degdeg ah ayuu u bedelmayaa abyada California. Waxay soo saareen walxo kiimiko oo cusub oo aan lahayn qaybta caadiga ah ee loo yaqaan leather sequende. Tani waa wax aan hore loogu arag fangaskan, waxayna muujinaysaa in uu si xoog leh ula qabsaday deegaanka cusub. Kiimikooyinkan cusub ayaa aad u badan peptideska cusub ee leather la'aanta ah. Waxaa lagu arkay heerar aad uga badan kuwa kale. Waxay ka badan yihiin kuwa fangaska Yurub soo saaro. Maxay tani ka dhigan tahay? Inkastoo aan weli la garan ujeeddada saxda ah, cilmi baarayaashu waxay aaminsan yihiin in kiimikooyinkan cusub ay kaalin ka qaadan karaan faafitaanka degdega ah ee fangaskan. Waxay sidoo kale saameyn karaan nidaamka deegaanka ee California. Fangasku wuxuu hore u muujiyey dabacsanaan hidde-side. Daraasad hore ayaa muujisay in misdin genes kuwa sameeya sunta fangaska ay kala duwanaadeen tan iyo markii fangasku yimid Maraykanka 1993 Meeyadii. Tani waxay muujinaysaa in abku yahay dilaa si fudud isu beddela. Faafitaan aan caadi ahayn abyada California waxay ka soo baxaan xirmooyin aad u tiro badan, mararka qaar in ka badan 4 fangas hal geed hoostiisa, taas oo aan caadi u ahayn fangaska deegaanka gunaanad. Abku ma aha oo keliya fangas sun ah, waa noole si degdeg ah u koobcaya, u beddelmaya, una faafaya. Kiimikooyinka cusub ee uu soo saarayo waxay muujinayaan in uu sii wado hagaajinta sunta iyo awoodda uu ugu noolaan karo deegaan cusub, taas oo keeni karta saameyn weyn oo deegaanka ah.